habeenaysan mar labaad aniga maxamed cabdi xaraare wili waxa daawanaysaan caawi iyo caalamka waxa hadda nagu soo beegan sanad laga jooga qaraxii Soobe oo ahaa masiibo argagixiso tii ugu weyneed Afrika waxa ku geeriyootay ilaa in ka badan 500 oo qof inkastoo aanay shabaab sheegan haddana waxa la aaminsan yahay in ay iyagu ka dambeeyeen al-shabaab waxa la sheegaa inay tahay kooxda ugu dhiigdaadinta badan Afrika dawladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ka arriminayay waxa ay sheegayeen inay muhiimadda koobaad saarayaan amniga iyo sidii looga guuleysan lahaa al-shabaab haddaba ma laga guuleysan karaa sideese guushu u ekaan doontaa waa dooda qamiista ee caawa iyo caalamka waxa igala qayb galaya Jamaal Cusmaan oo ah wariye madax banaan iyo sidoo kale oo ila jooga stuudiyaha iyo sidoo kale Faisal Roble oo ah qoraa Soomaaliyeed oo kaga jira khadka telefoonka magaalada Los Angeles ee California Faisal waana maqlaysaa ma filaya aad baan ku maqlaa waa ku soo noqon doona waxaan ku bilaabayaa Jamaal al-shabaab ma laga guuleysan karaa al-shabaab ma laga guuleysan karaa waxaan u arkaa su'aashaas lafteeda inay aynan haboonayn oo ay tilmaamayso dagaal أنا waxaan dhihi lahaa al-shabaab sidee loola heshiin karaa ba ka fiican sababtoo ah marka la dhaho al-shabaab ma laga guuleysan karaa macnaheedu waa aan dagaalano Soomaaliya in badan bay soo dagaalaysay Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta nabadoon isku keena al-shabaabna waxa laga yaabaa in warbaahintii reer galbeedka iyo sida wax inoogu wadeen la inooga dhaadhiciyay inay dad cirka ka soo dhacayihiin laakiin waa dad Soomaaliyeed waa dhalinyaro Soomaaliyeed dib hadii loo noqdo waxay ku yimaadeen inay la dagaalamaan Ethiopia dhiba badan way geystaan dad badan oo shacab way ku dhintaan muxuu ahaa dhaawacay qaraxyada ay geystaan waana nasiib daro laakiin in badan buu dhiig Soomaaliyeed soo daatay waxa ila quman aniga in la dhaho waran heshiina hadaan Soomaalina inta la leeyahay see looga guuleysan karaa waxa la leeyahay dad badan oo ajnabi baa ku jira fikradaha ay horumarinayaan ama ay wadaan inta badan waxa la sheegaa inay yihiin fikrada ajnabi dhaarna waxay u galeen al-qaacida xiriir bay la lahaayeen sida aad la socoto sidee loo la heshiin karaa nimanka sidaas waa la heshiin karaa hadii la helo dad Soomaaliyeed oo dan Soomaaliyeed ka shaqeynaya oo xor ah hadii villa Soomaaliya ay yimaadaan waa la heshiin karaa ma dhibadna sababta saan ku mubaayacadi la galeen al-qaacida ma la tirtiri karaa waa niman Soomaaliyeed waa wiilal Cabdi Umar iyo Cali oo isku xaafada lagu soo koray iskuul la soo dhigtay ma aha dad meel kale ka yimid fikirkaas ay inaga dhaadhicinaya ma aha yes dhiba badan way geystaan laakiin anigu waxaan aaminsanahay in al-shabaab la heshiin karo hadii dhinacan kale ee villa Soomaaliya la helo dad daacad ah oo raba inay Soomaaliya xal ka keenaan laakiin anigu waxa ay muuqata inaan la helin dhinacan kale wali dad daacad ah oo raba in Soomaaliya la isku keeno oo xal laga gaaro dhibka dagaalka waxaan weydiinayaa Faisal Umar iyo Cali oo axdi la leh al-qaacida ma la heshiin karaa ma se laga guuleysan karaa hadii aan la heshiin karin runtii wada heshiintu waxay ku xidhan tahay in labada dhinacba diyaar u yihiin kow in ay meeshay taagan yihiin ka soo dhaqaaqaan iyo laba mabda ay ku dagaalamayaan inay wax ka bedelaan waxay ila tahay dawladda dhexe oo kale ama dawladahan ka soo ambaqaaday Soomaaliya xilligii dagaalkii sokeeye dabadeed waa laga heli karaa garna waa loo dhigan karaa in meesha ay joogaan ay ka soo durkaan oo ay la hadlaan al-shabaab wada heshiisna ka fikiraan su'aasha la isweydiinaya waxay tahay xadgudubkan iyo meeshan fog ay al-shabaab gaadheen oo ay Soomaali dad badan u haystaan inaanay muslimiin ahayn oo ciddii fikirkooda ka duwan ay u haystaan murtad inay yihiin oo dhaqan aanay Soomaalidu dhowrka boqol ee sano ay muslimiinta ahaayeen aanay ku soo dhaqmin ma ka soo durkayaan way qofku hadii uu ka soo durkayo waxa uu jeexday iyo xariiqa uu jeexday uu yiraahdo meeshaasaan iman karaa wada hadal iyo heshiisiintu waa dhici kartaa laakiin qof sidan aynu u arkayno al-shabaab fog oo dawladu la lahayn laakiin dhaqan iyo shacbi boqolaal sano diintooda ku soo dhaqnaa la col ah aan rabinna inay ka soo dhaqaaqaan waxaan jeclahay bal in laga dhaadhiciyo dadka Soomaaliyeed sidii dadka loo heshiin lahaa iyo xadka ay ka soo dhaqaaqi lahaayeen iyo meesha ay rabaan in isugu yimaado waa gartay arraale waan ka dhaxgalay waxaan dhihi lahaa waxa aad loogu celceliyaa ma ka soo dhaqaaqayaan marka dib u fiiriso Sheekh Shariif al-shabaab buu ahaa Ahmed Madoobe al-shabaab buu ahaa Daahir Aways al-shabaab buu ahaa Robo al-shabaab buu ahaa hadda xagee joogaan dawladda dhinaceeda haye
maxaa loo leeyahay markaa lama heshiin karo waa la heshiin karaa aan su'aalka weydiiyo laakiin dad daacadan jirin wali oo dan Soomaaliyeed wada waa gartay taa aan su'aalka weydiiyo shabaab mar walba waxa loo qaybiyaa laba qayb jihaadiyiina oo xitaa haddii uu dalka ka dhacdo nabad meel kale jihaad u doonanaya iyo qayb la heshiin karo u dambeeyay Robo ama qayb la laayay sida Ibrahim Afghani oo kalantoon la dilay dadkii la heshiin karay qaybna waa la dilay qaybna waa dawladda u timid oo heshiisiin baa socota inta kale jannada ku socotaa baa la leeyahay oo heshiis ma ogola ma waa la heshiin karaa aan waxaan ahay waligeen last 10 years 10 sano la soo dhaafayna waxaan lahaa waa la heshiin karaa haddii la helo dad daacad ah oo raba wanaag iyo nabadgelyo inay Soomaaliya ka keenaan waa la heshiin karaa marka ani al-shabaab in badan man ka soo waramay dadka Soomaalida waxaad moodaa al-shabaab hadii laga hadlo way baqaan oo argagax badan baa gala markaad weydiiso labada arrimood ugu muhiimsan ay rabaan waxay leeyihiin ciidamo shisheeye ma rabno inay wadanka naga joogaan islaamnimadana waa in la isku maamulo labadaas waxaan aaminsanahay Soomaali inteeda badan way ku taageeraysaa marka waxaan dhihi lahaa in hoos la isugu noqdo oo intii maskax reer galbeed iyo maskax gaalo la wato ee la leeyahay lama heshiin karo nimankani way fog yihiin waa Cabdi Umar iyo Cali oo soo wada kornay war hebelo kaalay hal la dhaho ka soo noqo meeshan aad joogto anna waan soo noqone waa Faisal soo gal ma absolutely garway hadii dad marti u noqon kara al-shabaab warka noocaasna ka sidi kara oo huba in ay ku jiraan al-shabaab elements raga uu soo sheegay saaxiibkay Sheekh Shariifi ay ku hadheen oo madoobayaal ay ku hadheen Robo ay ku hadheen oo inta la fariisto la soo xerogelin karo meel dhaxana la isugu iman karo I think waxay Soomaalidu u baahan tahay waa ku raacsanahay shayga la diidan yahay oo ah in ajnabigu dalka ka baxo anigu waa ku raacsanahay taas waanan in badanna waa ka hadlay hase ahaatee al-shabaabna waa in laga helaa haddii ciidamadaasi ka baxaan dalka in iyaguna heshiiska ay u diyaar yihiin inaanay sidii dubaabad magaalooyinka iyo deegaanka Soomaalidu ay leedahay aanay dulmari waa ognahay markii ay magaalada Muqdisho meelo badan ka haysteen gacmaha ay goynayeen dadka ay dunuubta yar ku dilayeen falalka ay falayeen waxa la rabaa haddii ciidamada lagu heshiiyaba in laga saaro cidii xakamayn lahayd inta wada hadalladu socdaan iyo isku soo dhawaasho intay socdaan cidii al-shabaab akshinadooda iyo falalkooda xakamayn lahayd ma haynay inta jawaabay isku dayday ma jirtaa horta taas oo inta ka jawaabaya inta aanay ciidanka ay al-shabaab sheegto inay dalka ka baxaan intaanay imaan xog badan baa jirta oo sheegaysa inay saraakiil fara badan Soomaaliya ku dileen 2005 oo ay waliba bartilmaameedsanayeen si saraakiisha u laayaan dalka inay meel kale u geeyaan taa adoo ku daraya arintu sheegay Faisal ma nimankan ma shabaab waxa hortaagan ciidankan dantooda ma ciidankaaba ma wadana kale leeyihiin maya shabaab ma qarsoona in ay leeyihiin fikir weyn baan aaminsanahay oo way sheegtaan mar walba sida kuwan villa Soomaaliya joogaba ay reer galbeedka lacag uga soo qaataan ileen dan Soomaaliyeed iyaguna ma wadaan san sheegayo amisom iyo galbeed baa wata kuwana way jiraan dad iyaguna ay ku xidhan yihiin taas ma qarsoona أنا وحنا ليه هي لبضة سوما في عنا أنتي دن تاس شيء كله دن صومالية إلا يسوي ما دميين أهين دن صومالية هذي اللي يسوي ما دن وحنا آمن سنة هاي إن اللي كالفوقين إن اللي هشين كرو فيصل أرتين هذا هو خلد إن هو خلد إن مساي سقف عن كديجلا أو ضد بدن أو مساكين أو صومالي دلية sida ay rabaan iyagoo waxba galabsan qorto ka goynaya iyo nin nidaamku ka xumaaday ama maamulkiisu xumaaday horta laba la iska rabdigi kara ma sheekadu inaan ma ogta isku qasin al-shabaab dunuub way gashay umada Soomaaliyeedna waa ka saamixi kartaa kaliya waa inaynu helaan laba shay kow in al-shabaab laga helo in ay diyaar u yihiin without condition inay ka soo laabtaan xaq ma ahan anu dagaalku kaliya ma sheegayo fakar kan fog ee Soomaalida boqolkiiba 80 ay ka basaareen islaamnimadii ama nidaamka ay rabaan in ay islaamkii dib ugu soo celiyaan dalka oo nooc aynu naqaanaan ahayn taa inay damaanadii naga siiyaan taasi waa kow hadii taa la helo tan labaad in ay joojiyaan gacmo jarka qoor jarka dilka hadii labada ay joojiyaan la helo dad ka duqeyn kara arintan oo erga ka noqon kara wada hadallada Soomaaliya u baahan tahay وانا وقتيgeedina waa la joogaa baan u malayn waxa moodaa inaan ku noqonayno hal arin baa ku noqonayno
su-aal baa ku weydiinaa dhowr jeer baa shabaab waxaa ka samaysa warbixino waraysiyo badanna waa ka qaaday madaxdooda maxay guul u yaqaanaan waa naqaanaa dowladda Soomaaliyeed waxay guul u taqaan waa qiyaasi karnaa al-shabaab maxay guul u yaqaanaan guul iyagu waxay u arkaan markii ay shisheeyahani ka baxaan Soomaaliya hadday ka saaraan Etoobiyaankan iyo Ugandayskan Soomaaliya jooga wadankana islaamnimo lagu maamulo ayagu intaasay guul u arkaan walina deesay u egtahay ma gaarin guul waa waxa isleedahay waxay u hayaan nidaam oo dalkan lagu maamulo 2000 xilliga hadda joogan 2018 shabaab ma haysan nidaam ay dalku maamuli karto way kala tahay waxaan isleeyahay caalamka marka la fiiriyo wadamadan xooga badan ma ogolaanayaan al-shabaab wax maamulaysa si maxaa la dhihi jiray wax loo qaniino carabkuna u badbaado waa la isku imaan karaa iyadoo Soomaali la yahayo nimankani mid baa horta xaqiiqo oo lagama maarmaana in aan laga tagin waa wiilal Soomaaliyeed dhulkan way leeyihiin cid ka baabi'in karta ama ka saari karta ma jirto waa in la leeshiyo dhiig badanna wuu daatay in badanna waan isleeynay labada dhinacba waa hooyo Soomaaliyeed waxa ooyayse hal la heshiiyo aad ma santahay Faisal ku weydiiyay 5 second ma laga guuleysan karaa al-shabaab su'aasha ku bilaabay absolutely haddii dawlad nidaamsan oo shacbigeeda urursatay oo shacbigeedu isku duuban yahay la helo dawladda iyo isku talo yihiin shacbiga Faisal aad iyo aad u maasantahay Jamal aad iyo aad u maasantahay waqtiga ayaana soo